maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay in ilaa 6 ruux ay u xireen dilkii dhawaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu geystay 2 caruur ah oo dhalay xildhibaan hore Sheekh Aweys Cabdullaahi kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray Aamina Aweys iyo Cabdimuuni Sheekh Aweys Cabdullaahi. Wasiirka wasaaradda garsoorka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Xuseen Xasan John ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada ammaanka ay u xireen dilkaasi 6 ruux oo isugu jira 4 rag ah iyo 2 dumar ah, sidoo kalena ay jiraan dad kale oo weli lagu raajoogo. wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray wasiirka in dadkaasi hay'adaha garsoorka Koonfur Galbeed ay ku wadaan baaris xooggan isla markaasna madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu dalbaday in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. mar labaad may baan tacsiideeyay Sheekh Aweys iyo qoysay iyo guud ahaan shacabka reer Baydhabo iyo reer Koonfur Galbeed oo dhan tacaadidii iyo dhibaatadii lanjeysidii ayaan ku tacsiiyay lamadii onog Cabdimuuni iyo Aamina Aweys oo isbuuci hore balisiyeedche laka waxyeelay laka duugni magaalada Baydhabo tacsiidaas ka bacda ma nagay shacabkii reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mas'uuliyiintii garab istaagay oo muujiyaan Sheekh Aweys oo dabcan eelan reer Koonfur Galbeed ka weyn oo eelan oo reer Baydhabo mas'uul hore oo haddana daaci garab istaagay oo muujiyaan ku mahadnaqaana xiliyadan oo kale waa xilliga lambaahayay in oo la iska garab istaaga daruuf kasta oo jarta marka garab istaaga oo shacabka iyo macallimiinta iyo muujiyaan maalmoon dabcan ku mahadnaqaana mahadnaqaas ka bacda ma fadanaha ka xukuumad ahaan anoo ka hadalaa magacii xukuumadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in oo ka bashaarayna ka dowlad goboleed ahaan guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo Sheekh Aweys oo awkii dhalinyaradii iyo ciyaalkii la dhamaay in uu ka bashaarayna in oo kiiskii baaristiis meel fayl marahayta ilaa hadda lan haaya 6 qof oo lama balan iyo 4 qof magale waana la amaray bahda baarista sida CID-da amar buu hulasi geekon oo hiraabtun madaxweyne Cabdiis amaray in oo sudanka dhaqso badan la hangabagabeeyay baarista cid alle cidii oo loo kawaal latona la hanhira han oo hadan hirina baaristo la dhamaastira cidii ka adaatona dabcan wala sharciga ku qabo in la marsi taasay may boo bashaaro waayo geek hoob oo lanki waldili ama eedaysanagii gacmo ka jaro malhaayo ma qani la erafadi dhawaataada fadi ma sawaab wal dafarayha wal ku tabi hoob la erafadi dib kale hada fadi marka man bashaarana in dadka eedaysanayalka ay qaaran lahaay qaaran la daba roog madax CID-da oo geeka gobolkan roogay nala amari in oo sudanka dhaqso badan la han ku jawaabo codsigii oo sheeqa iyo codsigii bahweynta reer Baydhabo oo culamaa u diinsho iyo shacab shaba hajeediyeen maalintii shalay hayti shir degdeg la ku galay oo madaxweynaha hogaamiyaw wasiirka cadaaladda oo qayb ku hay lankii oo madluumka hay qayb ku hay Sheekh Aweys oo qayb ku hay baadii abniga oo CID-da qayb ku hayti mayna la haskala gorday in oo sada shacabka dalbadeen oo hayti in la dedeji walow markii hore ba CID-da iyo shaqo badan hayeen wana dabcan ka amaanana shaqada badan oo ku qabadeen abniga iyo waxbaarista dembigum oo foolo xumay markii la hagutaba laamaha amniga iyo CID-da amarka la si uuna mahay saaso kala hadii uuna baxday cadaaladda nana amarayha in oo diyaar garowna diyaarina garsooryaalkii oo maxkamadda ka shaqo lahayti 8 bishan ayaa 2 caruur ah meydkooda waxaa laga helay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo waxaana falkaasi aad uga naxay bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mahad Weel Warsame, telefishinka caalamiga ee Sooyaal magaalada Caabudwaaq.